martida ka soo qayb gashay dhammaan xafladan loogu xidhayo dufcadda labaad ee ka qalin jabisay dugsigan oo qaadatay tababarka danab. waxaan u hambalyeynayaa askarta ka qalin jabisay koorsadan oo aanu filayno oo loo hanweeyahay rajaynayno sidii tababarka ay u qaateen in ay ka muuqato goobaha ay ka muuqato tababarkii ay qaateen. waxaan mahad u jeedinayaa dowladda imaaraadka oo dugsigan baaxaddan leh samaysay kuna diyaarinaysa qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed, kuwa guud iyo kuwa gaar ahaaneedba sida danab oo kale. waxaana rajaynaynaa tababarka ay wadaan iyo mucaawanada ay ummadda Soomaaliyeed ay siiyeen inay meesheedii ka sii socoto. iyo dhammaan martida halkan ka soo qayb gashay. sidoo kale waxaan rabaa dugsigan dowladda imaaraadka oo nagu caawisay oo keentay macallimiintii iyo dadkii arrintaas hirgelin lahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa inay sii wadaan mucaawanadaas iyo gacansiintaas ay ka soo saareen ciidamo tababaran oo weliba si gaara u tababaran inay soo saareen aad iyo aad baan ugu mahad celinay. waxaan maraynaa waqti xasaasi ah dalka waagii horeeto ee ciidamada Soomaaliyeed la tababari jiray hadda taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo nagala joogaan. waqti waxay ahayd dalka uu nabad ahaa, fursadna loo heli karay in ciidan la dhiso. waqtiga maanta aan maraynaa waa waqti ka duwan waqtigaas. waqti waxaan maraynaa dagaal fakar xagjida uu ku soo wajahan yahay dalkan iyo dalal kaleeto dunida ka tirsan, isla markaasna ina sugayso in ciidan la dhiso. annagoo og marxaladdii aan soo marnay 20kii sano na soo dhaafay ayaa maanta waxaan rabaa ciidanka maanta dufcadda ee halka ka qalinjoonaya runtii inay madaxa ku hayaan dalkan ahmiyaddiisa waa amni amni amni. waxa maanta annagoo dhan aan xoogga saarayna waxa weeye in ay ciidankii Soomaaliyeed ee dalkan cadowgan joogan lahaa, dalkan amnigiisana la wareegi lahaa. maanta waa ugu mahad celinaynaa ciidamada Amisom iyo dadka kaleeta gacanta ka geysanaya amniga Soomaaliyeed in la sugo. laakiin amni wuxuu sugmayaa keliya maalinta annaga aan la wareegno amniga dalkan ee aan ku filnaano. maalintaas ayaa amni saxa